aqalka sare ayaa maanta meel mariyay hindisi sharciyeedka dib u eegista xeer hoosaadka ee golaha aqalka sare sida uu warkaasi noogu hayo waryaheena Cabdiraxmaan Saciid Xasan Taalanti. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kala fadhigii shanaad kulankiisii sagaalaad oo ay ku yeesheen xarunta golaha aqalka sare ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. ajendaha kulankan ayaa ahaa akhrintii saddexaad ee dib u eegista xeer hoosaadka golaha aqalka sare. shir guddoonka kulanka ayaa ahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyadoona uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare mudane Abshir Buqaari. ugu horreyn kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka golaha aqalka sare mudane Xasan Faarax Xujaale oo soo jeediyay hindis sharciyeedka dib u eegista xeer hoosaadka golaha aqalka sare akhrintiisii saddexaad iyo waxyaabo ay codsadeen bay halkan ka muujiyeen. marka waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan u sheego marka ugu horeyso horta qof kasta oo senator ah inuu akhriyo xeer hoosaadka aqalkiisa iyo mas'uuliyadiisa inuu akhriyo oo waajibka uu gudanayo oo tilmaamayo inuu akhriyo isaga qeexaya waxa ay soo jeediyeen senatarada meeshay u marayaan iyo wadada ay u raacayaan isaga qeexaya. senator Deeqa oo markii labaad ay ku soo celisay maalintii ay ka hadashay arrintaana waxaan filayaa inaan jawaab ka bixi jawaabtii aan bixiyay isla su'aashii ku soo celisay. marka waa xeerka oo dhan dib u eegiddu ku socdaa kalfadhi kasta markuu furmaayo guddigan waajibkiisa waxa weeyaan inuu tala ka soo jeediyo. taladii uu soo jeediyay oo kalfadhigii u horeeyay kii ku xigay uu soo jeediyay weekan markii Abriil aan soo jeedinaynay wixii ka dambeeyay duruufo badan baa yimid oo isbedelay guddigu wuxuu arkay inay necessary tahay in la bedelo oo wax ku bedel lagu sameeyo ayuu keenay. waa waajibaadkiisa uu farayo xeer hoosaadka qodobka 81 xarafkiisa marka kaas golaha la hor keenay waqti baa ka soo wareegay. inta uu kulanka socday ayaa iyana waxaa goobta ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. akhrinta koowaad oo marayay ma waxaana la hor keenay 12 qodob oo hadda laga shaqeeyay mase waxaan ku heshiinay in xeer hoosaadka dhan laga shaqeeyo barkee maalin dhaweed anaga markuu akhriska labaad marayay waxaan qodobo badan aan ka hadalnay qodobadii badneed oo xeer hoosaadku si guud aan uga hadalnay waxba lagama soo qaadin oo way ka soo tageen kaliya 12 qodob wixii laga yiri bay ka soo jawaabeen guddiga. marka waxaan qabay aniga markii anaga ku heshiin waxaan ku heshiin haday yihiin in 12 qodob laga hadlo bilowgii hadda markaan haddana dib u furanaynaa oo dib uga shaqeynaynaa dib ma lahan. sidoo kale waxaan codsanaynaa guddiga waxa lagu wareeray hadda sida Cabdikariin oo kaleeto oo maalin dhaweeto maalintii u dambeysay aan soo jeedinteeda halkan aan ka soo jeediyay oo waxay ku wajahneed aan hore u sheegay in qaabkii guddiyada lagu soo xulay ama lagu soo dhisay baan dhaho aniga aragtideeda inay ahayd mid aan waafaqsanayn nidaamkii hore u jiri jiray. hindis sharciyeedka xeer hoosaadka golaha aqalka sare ayaa intaasi kadib cod gacan taag ah u qaaday gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyadoo ay dhammaantood xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay u gacan taageen hindis sharciyeedka dib u eegista xeer hoosaadka golaha aqalka sare mana jirin cid ka aamustay sida uu sheegay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. 29 xubnood ee kale way isku raaceen wax diidaa male wax ka aamusanay ma jiro sidaas oo ansax ku yahay. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa halkaan ku ansixiyay akhrintii saddexaad ee dib u eegista xeer hoosaadka golaha aqalka sare. Cabdiraxmaan Saciid Xasan Cabdiraxmaan Talante telefishinka caalamiga ee Royal TV golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.